بابوري باري كلام بدوني بقى ولا البد موضي بطرولي باسكل يا روحي الوضعي ولا لا الموضي بابوري باري كلام بدوني بقى ولا البد موضي بطرولي هذه معاه waxay ugu tala gashay inaynu xusno oo inuu maxfalno oo inuu dabaal degno oo aynu caawa xarunta Hidde Academy aynu inagu sii qadimano xuska 32 guurada ka soo wareegtay dib u la soo noqoshadii qarannimadii inaga luntay 1960kii 26kii Juun waxay nala joogaa agaasimaha aasaarta Anyala Cabdiraxmaan Baylood waxay nala joogtaa mujaahidadeeni weyneed Saara Halgan bay nala joogtaa waxay nala joogaa Roble Maxamed waxay nala joogaa oo si khaas ah caawa marti inoogu ah kamaan doostii qaranka dhalinyaradii dhiiga iyo dhuuxa iyo nafta iyo aqoontaba qarankooda u soo huray waa kamaan doostii Gooja Cadde waa raggii banka Gooja Cadde intay fadhiisteen yiraahdeen almiidaan waasac ee wacdari ay ka dhigeen adarkiiseen waa ragga aynu maanta Hargeysa nabadda ugu naaloonayno Somaliland ay nabad hawlaheeda iyo maxfilkeeda iyo waxaan ku horumarkeedaba ay ugu naaloonayso waa ragga cadawgu ka waakaday ee aanu ku soo dhicin oo hogaaminayo Mr Africa iminkii haatanna calankaynu caawa halkan u fadhino ee inuu dabaal degayno heestiisii ayaynu qaadi doonaa Samakuwar reeya calanka suran bilay dhulkiisa Samakuwar iyo bogaadi suran abalya suuba kugu salaale Samakuwar abalya suuba kugu salaale Samakuwar geesiyaashii naftooda u sarreeyay qarannimada Somaliland geesiyaashii naftooda u sarreeyay qarannimada Somaliland biskooda dhowsa kugu salaale Samakuwar biskooda dhowsa kugu salaale Samakuwar guul sidee xambaarsan soo noqoshadiisa kalsoonidu mutaystaye dastuurka kugu salaane midnimo walaalnimo gobanimo midnimo walaalnimo gobanimo islaanimo kugu salaane Samo Samiyo islaanimo kugu salaane Samo Samiyo Samakuwar 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 waa hagaag iminkii haatanna hees aan ugu tala galay ciidamada Commandoska ciidamada qalabka sida oo uu qaadayo fanaan Casir Yare ayaa dabka inoo saaran oo la soo wadaa heestaas ayay ciidamadeena ku soo dhaweyn doonaa si qalbi furan hadii Ilaahay dhaho عرفيدا دلكيغان كجرا عذاب عدد بانكو بعشا عد حدود هيجيو عدد بانكو بعشا عد حدود هيجيو على كي قبلي قالي صوت عدو عيسى على كي قبلي قالي صوت عدو عيسى
عد حدودهايجي على كي قبلي قالي صوت عيسى على كي قبلي قالي صوت عيسى البيبان وليا هاي تقل عينة ديسو البيبان وليا هاي تقل عينة ديسو عشربان ودقيا عدوي ويرنا عشربان ودقيا عدوي ويرنا البيبان وليا هاي تقل عينة ديسو البيبان وليا هاي تقل عينة ديسو عشربان ودقيا عدوي ويرنا عشربان ودقيا عدوي ويرنا عدوي ويرنا عدوي ويرنا عدوي ويرنا ها ها سيغيري بموي كعرر بمي برن عاقا هايقو وابيرو عالمركوي ما هدنا سيغيري بموي كعرر بمي برن كسعب لبانه عردو كنول ياهي كسعب لبانه عردو كنول ياهي عروري عرو لبا عبسلي كجوغان عروري عرو لبا عبسلي كجوغان كسعب لبانه عردو كنول ياهي كسعب لبانه عردو كنول ياهي عروري عرو لبا عبسلان كجوغان عروري عرو لبا عبسلان كجوغان البيبان وليا هاي تقل عينة ديسو البيبان وليا هاي تقل عينة ديسو عشربان ودقيا عدوي ويرنا عشربان ودقيا عدوي ويرنا البيبان وليا هاي تقل عينة ديسو البيبان وليا هاي تقل عينة ديسو عشربان ودقيا عدوي ويرنا عشربان ودقيا عدوي ويرنا عدوي ويرنا عدوي ويرنا عدوي ويرنا وهاك waxaynu ku sii socon doonaa xafladeennii imika iyo haatanna cilmadeena sharafta leh ayaynu shahaadooyinkii guddoonsiin doonaa waxayna la fadhiyaa agaasimihii aasaarta iyo dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland ayaan la Cabdiraxmaan Baylood iyo mujaahidad Saara Halgan intaanay shahaadooyinka bixin mid walba laba kelmadood buu oran doonaa agaasime ku soo dhawow madasha waan mahadnaqayaa Hidda Academy eedin maybe noo sii qadintay xilligeygii waqti yar baa inooga hadhay Allah nabad qab inuu gaarsiiyo caafimaad waxaan ku soo koobay kelmadeyda maadaama munaasabad qiimo badan oo dhalinyar badan oo Cabdiraxmaan iyo tiimkiisaba waxaan badanka markay meelaha dalxiiska tagayaan free baan uga dhignaa maadaama iyagu ay yihiin dadkii heesa badan u qaaday meelaha dalxiiska iyo hay'isna u yihiin promoted waan rajaynayaa in Hidda Academy iyo wasaaradda dalxiiska ay wada shaqayn weyn leeyihiin ciidanka qaranka badanka waxaan ka daawadaa
ميديا تيم كا قوش عدي مجاهدين تا حقا نهار فرديا ونما هنقيا صاحب بضي عيدا كقرا كانوا حرجينا إني كوريستان إيدين مني ونوصل دو ذهي سفي عن هلو دبال دقو نقول والباء يقوب والبابا على كهلا صورة أدبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدتي ويني سارة هلجن صعب مشهد المسؤول. أدبا ندي سلام يا دمانتين با وحا شرف يا أخرتين نعاو هالكن اللي تشوفوا حسكني وحول بوين غير بدني هاي وايو dadku dadka qaar baa ka sheekeeyay 16 Juun 16 Juun waa maalin xorriyad ka qaadnay isticmaal laakiin tani waa maalin nin aynu u maleeynay inuu walaalkeen ahaa inala af ahaa inala diin ahaa inala kalar ahaa inala maxay ahaydeen magac ahaa aynu isku xoreynay weeyaan tani wax walbana iyada ka qiimo badan waayo ummadda nation dan waxay intaasoo sano soo dhisayeen boqolaal sano soo dhisayeen ayaa muddo yar oo gaaban nacayb loo qabo lagu baabiyay maynaan anigu marka naftayda ka hadlo maan fahansanayn waxaan moodayay oon dareemayay in nacaybku ay ahaydun dawlad laga soo horjeedsaday laakiin maanta dagaalkii dhacay ayaa ku tusaya nacaybka dadkan iyo dalkanba loo qabo in la doonayo in la baabiyo laakiin waxay iloobeen mujaahidiintii kuway dhaleen kuway sii dhaleen inay joogaan ayay ilaabeen nabad wax ka qaalisan ma jiro mar walbana waa inaad dadka jaarkaaga ama ehelkaaga ama ilaahay bawcada idinku wada abuuray waayo jaarkaaga choice-kooda ma lihido ilaahay baa isku meel idinku abuuray ree sool waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo inta u haysata inay halgan ku jiraanna waa been adeer halgankaayagii ayuu ahaa halgan aad libis iyo soo marsanaysaan oo iska duubaysaan halkan aan taaganahay aad leedihiin kaasi halgan maaha adeer waa inaad kaadida ilowdo waa inaad cunada ilowdo waa inay injiri ku gasho kaasi halgan leeyahay laakiin intaad ii soo fadhiisato Google ii soo dhigato dadka birada ka saarina waxaan leeyahay waa qurba jooga meel wal oo joogaanba isma dhaamaan balum bay horinayaan laakiin anagu waxaan ku codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda inay way ka qaban kartaa dadka balada horinaya iyo shirkadaha lacagta loo soo dhiibayo ummadan lagu barakicinayo ee aan wax aliyaalo wax laga helayaa jirin inay wax ka qabtaan waayo wakiilo safiira ay noo jooga dadkeen dad wanaagsan oo badan oo Soomaaliland ra jooga barigii hore la isma weydiin jirin ninka Kibra adeer lugaha silsilad loogu xiri jiray waa in la helo waa in raggaasi idinka mid noqdaan inagu cidna dili mayno cidna doonan mayno laakiin ninka qarannimadeena iyo jiritaankeena iyo nabadeena iyo waxaynu maanta intaasoo wax ku weynay ku soo duula waxba isku manin cidu doonaha ahaado qoladan Puntland waxaan leeyahay bariya culusta waxaan leeyahay gooja cadarag baa jooga in la yiraahdo waridaad baa magaca bixiyay ma fahanteen waxaan leeyahay gooja cadow rag baa jooga Soomaalina farta dheer ee ku jirta ee maanta cid walba xaganaysa waad arkaysan danay sidoo hadlayay markuu madaxweyne Muuse Biixi hadlay xataa diblomaasiyad baa lagu daraa laakiin nin caroonaya siyaasi ma noqdo وحقني وحو إلا وحو تجي حتى قال كعيو أيولها محايدين دقالها لقو قالوا في حاجة سومالن حاجة محكتو حاجة يسوي حكتها وأنا تماري والبكاء قصتها جيدات كنتو إن عيدا كقرنك يجوا تعدي يدليرنا نسكبرني براه برشدة وأنا مهد عليا نين رادينا يا بانو كشرة نيكي تعليين يا ده نيك رجع ما قبته ninka ragga marka uu ka boqo in la qabto isaga waxa bad isku dhufta anagu waxaan leenahay kulay nabad baana macaan dagaal la garan maysaane inta cagta dhigtaan ummadda baradeeda ha ka saarina wuxuu ninka weyn ee danay ku ololeynaya laascaanood baan dadkeedii ka saaroon u soo gurmaday iyagoo hablahoodii kufsanaya ceebay caleeg wali inta Soomaaliland joogtay lama sheegin
inan la kufsado waa caar waa ceeb waa hooyo waa walaal waa ehel waa inan waa afo waxa weeyaan waxyaabahaas oo kale inagama suura galaan waxaan ku faraxsanahay in ilaahay iga dhaliyay rag garanaya qiimaha dumarkooda iyo hablahooda iyo haweenkooda iyo hooyooyinkooda ayaan ku faraxsanahay oo meel walay joogaanba ku ilaalinaya waayo maanta halkaa aanu fadhino wax waloo soo marayba nabad baan ku seexanaa nabad baan kusoo toosnaa waqti aanu anigu goolaaftan jirnay way jirtay laakiin de dhallinyaradii joogto iyagana goolaaftanka u deynay waan salaamaya waxaynu ku sugannahay xarunta Hidde Academy ay ku leedahay caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa caawa waxaynu u dabaaldegaynaa ciidii calanka waxaynu u dabaaldegaynaa 18 May waxaynu xusaynaa 12 guurada guushii ay dhaliyeen mujaahidiintii SNM ee naftoodureyaasha ahaa ee qarankan xooga dhiigga iyo muruqa iyo caqliga iyo maalka ku soo xoreeyay mar labaad waxay noo taagan mujaahidadeennii weyneed ee Sahra Halgan waxaana inoo qaadi doontaa hees baarcada ah oo Hidde Academy xagga ciyaarta isku labaragi doonto iyaduna ay calanka iyo ciidda ay ku maamuusayso hobaysanad guuradeedii hadday sugantay heesalka u dhigay saxabka u tumo u sare kacay allah nagu simee si dirgam helelow iyo helelowaan helelow iyo helelowaan hobaysanad guuradeedii hadday sugantay heesalka u dhigay saxabka u tumo u sare kacay allah nagu simee si dirgam
imkan waxaynu guda galaynaa bixintii shahaada sharafta aynu ugu talagalnay ciidamadeenan sharafta mudan waxaanu yeedhayaa cabdixakiin saleebaan jaamac dal mujaahid شرف كركاغ ها وهجاك waxaa kaloo yeedhayaa cabdiraxmaan axmed diiriye hiil qaran ما شاء الله واتهاي waxa kale oo aynu isagana u yeedhaynaa waa Mustafa Maxamed Xirsi Sango وهجاك مروان سعيد علمي عدعاد waxaynu sugaynaa yeenu sugaynaa yeenu sugaynaa ninkii lixla bedelay maxamed cabdilaahi cabdi xuseen afrika قصدي ايوه انا الصراحه اعرف تويتر انا فرحان الله يدين شرفه الله يدين كراميه ان runanti ma aha abaalka nagu leedihiin wax shahaada sharaf lagu soo koobi karo wanaga mutaysateen inaad korkayaga saarnaataan الله يدين حفظان لنا إمكنا iyo haatan talo maxay ka filaysan ina butoriyo wallahi ka tahay walwaayahay ciidankeena sharafta leh heesay inoogu tala galeen ayay imikana inooga qacsiinayaan عداوي وسودان الكيغا
jira waxaan dhamaciyo rasaas intaa u dhex taagane dharar milciidan way fays waxaan ugu jira waxaan dhamaciyo rasaas intaa u dhex taagane dharar milciidan way Saldi
sadir mahadu naqa sagalki waqa obe sakaba urto obe sama ku abshirne obe sadir mahadu